فوضى الداية ولا ليال فوضى الداية فوضى هل الداية أنا اسمه قلو وبقولال كمية دكتور مكتوب كيسة بحول دولة كواوين المجالات waxay ka xun yihiin dil xalay kiiskii ka tirsan ciidamada booliisku u geysay laba qof oo shacab ah bannaanbaxayaashu waxay gubayeen taayiro waxay tuurayeen dhagxaan waxayna sidoo kale dhulka ay soo dhigeen sawirada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku hordhalaan magaalada meelo kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Umar Finish ayaa tagay meelaha qaar wayse ku adkay dadku inay dhageystaan dadweynuhu aad u cariisnaa ayaa dhageysay diida hadalka gudoomiyaha meelaha qaar waxay tuurayeen dhagxaan soo bannaanbaxay ina xaafadan ku dilo aanu ka furayno noo maal xaafadan ku dilo gabadheedo dhaqanaysa alaab la dilay oo umula soo 10 bir dhala ayaa soo bannaanbaxay wiilkii wadnahay uga dhacday askariga oo dilay waliba oo si fakasho sameeyay walaalkiis oo qabtay oo dhahay askariga waxa laga qabto markii dambe la qabtay maxay uu qabtay saasanka oo xaafadii waa marka waaba qaadanay maxaa xaafadan ka dib maadan ku dilay ولدنا عبشة بدنا كتبينا كان ما قبض عنشورة بعيونا ورا مساكين النهاي عنشورة نقل قالوا وحي عسر الدين وتسك حسن تامان تمدنا مدحوين وهذه قدرتها مرت فيها اللي لا قبل تدع بريد لنا وراه تدع بريد تريلي انتك سقيسا لا اله الا الله ورا ما ندري بالدورات بورك عمر كيا لو واجع جع انت هذا كايه ما انت هذا كل صوت عنا مدنا مدحوين انه وناجي وناق وجعلنا وحي وناق وجعلنا مدن مدحوين وحاولنا فو أنا قناة الصومالي واحد صومالي نسيج جرتاجعلها هندقدمين ورهدا عرنا هندقدمين إليه ساعدنا نستاجدون وأن الذكرى وحي حسر الدين وفع سنتا ما الدين مدحوين كبر يويل عدلتك وحين كل إنسان قاعد كردرنا الدش وحي هلا يمر شعب واي ولا مدي حتى موتا مدي قفا مدي ولا نقول الدلا أنت لقارك راكو بستولة استودت كديله هالرأسنا أذكرتني واحد ديله هذا ربا قوات الديله شعب كدولة تكتاين للديله هذا حكمته وقلت لهم فكر مياه gudoomiyaha gobolka ayaa la hadlay boqolaal kamid ah dadkan wuxuu hoosta ka xariiqay haddana gacanta lagu hayo askariga dilka geystay wuxuu xusay isagoo ku dhanah dadweynaha inay maxkamad la istaagi doonaan askariga dilka geystay reer Muqdisho dareenkooda sida ay u muujinayaan waa uga mahadcelinaya dhacdada xala dhacday waa mid aan idin la wadaagayno xanuunkeeda mar haddii aan idin la wadaagayno talaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa talaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday talaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa xalay si mas'uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacab ah wuxuu ku dilay askari booliis ah askariga booliiska ah ee dilay shacabka Soomaaliyeed laayay ayaan askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas'uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya qoysaska la dilay qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo keliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanaha laga soo saari doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa soo hadal qaaday bandowga caradu ka dharatay dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aano ayaana ka soo bixi doona go'aanada soo bixi doona aan dhowrno qaybo kamid ah magaalada Muqdisho maanta waxaa gilgila banaanbaxay ay sameeyeen boqolaal kamid ah dadka Muqdisho meelaha dadku isku soo baxayna waxaa kamid ah isgoyska Jubba iyo fagaaraha Baljika Daasoon degmada Bonner waxay ahayd meelaha ugu badan banaanbaxu ka dhacay waana halka xalad dilku ka dhacay Abdul Qaadir Okay VOA Muqdisho